Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabtay sharafta leh igu xiran sidee tihiin anigu waa idin wanaagsanahay kusoo dhawaada video cusub videoga maanta wuxuu ku saabsan yahay cuntada maanta dhan aan cuni doono insha Allah oo waa cuntada aan isku caateeyo oo iga caawisay inaan 13 kiilo aan iska dhimo cuntadan ma aha cuntaan maalin walba cuno waa kala bedbedeshaa cunada laakiin maanta waxaan cunahay kaliya way cunadan soo maalmaha kale waxaan cunahay haddaa u baahan tihiin waa iga codsan kartaan ana waa idiin soo gelinaa insha Allah videoga ka horeeyay waxaan kaga sheekeynayay sidaan 13 kiilo isaga riday maxaan cunay maxaan sameeyay maxaan qabtay maxaan raacaa waxyaabo badan baan kaga soo hadlay videogaas sawiradeeda before after miisaanadeedii information badan baan kusoo sharxay videogaas si aan isku fahanno videogaas soo daawado insha Allah linkiga videogaasna waxaa idiin soo dhigayaa commentiga midka ugu sareeya soo daawado insha Allah soo daawasho wanaagsan subaxnimadkii markii aan soo kaco waxaan sameystaa shaah ani subaxnimadkii xilli hore ma soo kaco waxaan kacaa 10 ilaa 10 barka subaxnimo xitaa maalmahan xilli hore aan kaco markii aan kaco baan shaahan aan sameystaa aan cabaa shaahigu wuxuu ka kooban yahay sinjibiil biyo liin dhanaan iyo caleenta green tea-ga ah waxaan sinjibiishan soo qaatay 3 xabo yar distidiyan ku riday biyaan ku daray muddo ilaa 10 daqiiqo aan isku karkarinayay biyihii sinjibiishii markay isku karkareen 10 daqiiqo dabka ayaan ka damiyay halkaan waxaan ku tuujisanayaa waxa waaye jeex liin dhanaan ah bakeerigan kusoo tuujiyay baan ku miiray kadibna waxaan kusoo dhex ridanayaa bakeeriga hal xabo oo caleen shaah ah caleentan shaah waa green tea iyo liin dhanaan kadibna bakeeriga waxaan kusoo shubanayaa biyihii aan sinjibiisha kusoo karkariyay waa kaas shaahayga saas uu diyaar igu yahay waxa ugu horeeya subaxnimadkii cabo shaahan weeyaan shaahan isagoo kulul baan cabaa waxa weeye sinjibiisha biyahan kulul liin dhanaanta caleenta green tea waxyaabahaas oo dhan oo waxyaabo baruurta rifa baruurta degdeg ka gubayaan waliba marka aad gaajaysan cabtid waa kaas hadii shaahayga hadda beerka iska saaraya shaahayga markaan soo cabo kadib jikada ayaan kusoo laabtaa quraacdeedaan samaystaa quraacdeedaan badanka ku quraacda waxa waaye boorash halkan waxaan kusoo diyaarsaday waxyaabaha quraacdeeda oo dhan aan ka samaysan lahaa halkan igu diyaarsan halkan waxa yaalo waa strawberry blueberry xabad moos ah quraarada waxa igu jira chai seed halkan waxa yaala oats ama boorashkii caagadaasna waxa igu jira waxa waaye amba kartoonkaas waa caano oo low fat ah ani boorashka isticmaalayo waxaa la dhahaa oats multigrain boorash kaliya maahan waxaa ku jira boorash qamadi hadhuudh waxaa ku jiro kale geedka la dhaho saliidka waxyaabahaas oo dhan uu ka kooban yahay waa boorash aad iyo aad u wanaagsan sababtoo fiber badan buu leeyahay markii aad cuntid hore ugama gaajoonaysid muddo badan buu calooshaada ku jirayaa midda kale boorashkan wuxuu ku fiican yahay caloosha kuu socodsiinaya diet markaa ku jirtidna inay calooshaadu socoto waa muhiim haddii calooshaadu istaagsan tahay miisaan badan markaa degaayo marka waa kaas waa boorash aad iyo aad u wanaagsan oo haddii aad diet ku jirtid waxa waaye zaid ku anfacayo waa kana boorashkii waxaan kusoo shubtay bakeerigan waxaan boorashka qiyaastaa 50 gram ama bakeerigan halfkiisa wax yar koreeya boorashkii waxaan kusoo shubtay distidiyan kusoo shubanaa boorashkii kadibna waxaan kusoo darsanayaa malqacad oo geedka la dhaho chai seedku waxa waaye geed oo loo isticmaalo miisaan iska dhimista badanka biyo inta lagu darsado oo lagu radiyo nus saac baa biyahaas la cabaa laakiin haddaan biyo ku darsado caloosha igaga dhagaa marka waxa weeye boorashka iskaga karsada haddana boorashka waxaan kusoo daray caano boorashkayga anigu baan ku karsadaa caanaha low fat-ka ah waxa weeye caanuhu calcium bay u leeyihiin calciumtaasna aan u helo boorashkuna uusan gaas igu kicinin waa kaas hadda waxa weeye boorashkan wax yar karkarinaynaa boorashkayguna boorash buda maaha waa caleentaas waaweyn waa kaas dhowr daqiiqa wax yar boorashka aan karinaynaa insha Allah waa kana boorashkii cabaar baan isku karkariyay wuu iisoo bislaaday boorashkaygan waxa waaye biyo inaan ka dhigo ma jecli waxaan jeclahay inuu cunto ii noqdo soo hore iga bixin marka saasaan iskaga samaystaa anigu waa kaasa boorashkii saasuu kusoo baxay saasuu diyaar igu yahay
dabka ayaan hadda ka daminayaa. Kadibna boorashkii waxaan kusoo shubanayaa madeebadan aad u jeedaan. Halkan waxaan soo dhigtay 5 xabadood oo strawberry iyo 8 xabo blueberry. Strawberry baa sida yaryar u jeedaan aan u jarjarayaa. Khudradan waxaan rabaa inaan boorashka korka kaga daro oo aan ku cuno. Waxaan kala soo qaatay jeex moos ah. Mooskiina waan jarjaranayaa. Waxa weeye khudradan iskuma badinayo. Khudradu waxay leedahay sonkor dabiici ah. Marka diet ku jirtid hadii aad isku badisid ayaga waxa weeye miisaanku inuu ka dhaco ka hor istaagaya. Ani marba khudradii aan haysto baan boorashka ku cunaa. Khudradii aan korka kaga soo darsaday boorashkii. Quraacdeedii saas ay diyaar ugu tahay. Wax malaba kuma daraayo, wax kaloo ii macaaneeyay kuma daraayo. Diet-ka lagu sheegayo waa macmacaanka iska ilow. Khudradan iyo boorashkana aan isku cunaya ayaga is macaaneyn doona. Waa kaasa quraac wanaagsan. Saddexdii barka galabnimo markay tahay waxaan samaystaa qadadeeda. Marka qadada ugu horeyn waxaan goosanayaa ansalaato. Ansalaatadeedu waxay ka kooban tahay spinach amba koosto, salad, khiyaar amba qajaar iyo liin dhanaanba marka hore aan goosanayaa. Koostadii waan gooyay, saladkiina sidoo kale saa u jeedaan aan u jarjaray. Haddana khiyaarkii waxa weeye aan goosanayaa. Aniga qadadeeda mar walba waxaan isku dayaa inaan ku daro spinach amba koosto. Sababtoo ah spinachka dadka caloosha socodsiiya saa hore idinku sheegayna. Haddayse calooshaada soconaynin miisaan badan kaama degayo. Waa kaasa saladkii oo dhan aan soo jarjaray. Kadibna waxaan ku soo ritay madeebadan. Saladkii saan u jeedaan ayuu diyaar igu yahay. Saladkii dhinac ayaan iska dhigay. Haddana waxaan dabka soo saartay maqli. Maqliga waxaan ku soo shubay khudradda isku jirta oo frozen vegetable la dhaho. Khudradan waxay ka kooban tahay waa carrot, waa beans, waa peas, waa cauliflower. Intaas ay ka kooban tahay. Khudradii aan maqliga ku soo shubtay. Haddana khudradii waxaan ku soo darayaa wax yar oo milix ah. Milixdan nooca isticmaalo waa pink saltiga ama milixda oo nooca pinkiga u eg. Kadibna waxaan ku soo darsaday wax yar oo biyo ah. Kadibna waan yara walaaqayaa. Dabkaan u shidayaa ilaa inta khudradan waa iska bisayl inay dabka wax yar gasho u baahan tahay. Wax yar waxaan suginaa inta ay biyahan soo kursanayso oo ay khudradu ay soo bislaanayso. Waa kana khudradii biyihii way soo kursatay. Diyaar bay tahay. Dabka waan ka daminayaa. Waxaa jira walaalayaal oo khalad ay dad badan sameeyaan. Diet-ka markay dadku ku jiraan waxay ka aaminsan yihiin khalad. Waxay ka aaminsan yihiin in gaajo la isku dilo, wax nafaqo loo dhan la iska ilaaliyo. Laakiin diet-ku waxa waaye cuntooyinka oo macmacaanka iyo miisaanka ku saaraya iska dhaaf. Waxyaabo nafaqo iyo borotiin iyo khudrad leh cun. Waxa weeye quraacdiya qadada waxaan cunaa cunto fiican. Weliba qadada waxaan cunaa cunto wada borotiin ah. Waxaan sameeyay saladkii iyo khudradii aan soo karkariyay iyo liin dhanaan isku tuujiyay si fiican aan isugu walaaqay. Haddana waxaan soo dul dhigtay saladkii waxa weeye beed 2 xabo beed oo soo karkariyay baan soo dul dhigtay. Maalin beed baan dul dhigtaa, maalin waxaan dul dhigtaa digaag, maalin fish. Kadibna beedkii waxaan korka kaga daadiyay wax yar oo waxa weeye filfil ah iyo wax yar oo basbaas qalalan ah. Qadadeedii saan diyaar igu noqotay. Qadadan waa qada kaalis gaarag ah sababtoo ah diet-ka markii aan bilaabay. Qadadan week waxa laga yaabaa 3 mar inaan cuno anoo marna beed ku cunaya, marna digaag, marna fish. Isbedel badan baan iska dareemay. Jirkeyga waxa weeye glowing, tintayda kaalis gaarag bay noqotay. Xitaa garaamaadka dhiigayga baa kor u kacay. Waagii hore garaamka dhiigayga uu hoosin jiray. Marka alaabtan waa nafaqo. Haddii aad diet ku jirtaan haddii kala isla ogaada. Waa kaasaatay qadadeedina saas ayay diyaar igu tahay oo ku enjoy gareynayaa. Habeenkii fiidkii markay tahay 6 fiidnimo, 6 maqribnimo amba ilaa 6 barka waxaan cunaa cashadeeda. Marka hadda waxaan diyaarsanayaa waa cashadeedii. Halkan waxaan kusoo diyaarsaday dry fruit amba loosas, noocyo badan oo loosasa. Ugu horeyn waxaan ku riday meesha waxa waaye dry fig amba saytuunka quraanka lagu sheegay oo qaleyl ah. Waxaan ku soo ritoo kale bacon looska la dhaho, almond,
waxaan kusoo ritay walnut, haddana waxaan kusoo ritay waxa waaye pistachio looska la dhaho. So loosaskaasan soo diyaarsaday, wax badan iskama badinayo, mid walba wax yar baan kasoo qiyaastay. Loosaska waxa waaye miisaan dhimista ay qeyb weyn ay ka qaataan. So loosaska markaan soo diyaarsaday, halkaana waxaan kusoo qaatay hal xabo oo apple ah amba tufaax ah oo nooca akhtarka ah. Midkii aan jarjaraya tufaaxa nooca akhtarka ah waxa weeye baruurta ayuu shiilaa, aad iyo aad buu ugu wanaagsan yahay miisaan dhimista. So tufaaxii aan jarjartay, halkan aan soo dhigtay tufaaxii iyo dry fruitkiiba. So aniga caadi ahaan quraacda iyo qadada cunto fiican aan cunaa, laakiin cashada wax yar oo fudud oo snack oo kala baan cunaa oo aan badnayn. Habeenkina weliba xilli dambe baan seexdaa, 2 habeenimo meelahaas. Cashadeeda ugu dambeysana waxaan cunaa 6 barka. So mar walba waxaa fiican cashadaadu inay khafiif noqoto aysan wax badan noqonin. Xilli horena aad cuntid, ugu dambeyn 6 barka cashada cuntid baa wanaagsan. So halkaana waxaan kusoo diyaarsaday caleenta green tea iyo biyo kulul baan isku soo darsaday. So cashadeedii inta weeyaan saanaan kusoo diyaarsaday. Waxa weeye cuntada ugu dambeysa 6 barkaan cunaaya oo waa cashadan. Beritoole subaxnimada 10 barka wixii aan cuni doono baa iigu xigaya. So videoga intaan aan kusoo ekeynayaa. I wish inuu videogan idin qanciyay. Waxaan kaga tegayaa maca salaama.